inta maxaad u fadhiisatay maraw aabaheena inuu arko wejigeena beenta ah waxaan sugooyaa ilaa qoraxda oo ka dhaco xumaanta maalintii aan samaynay sidii ku tirtirmo si adoogeena noogu arkin weji waadax ah wiilkiisa aan dhib u geysanay marabna wejiyaalaheena oo beenta inuu fahmo beentaasni oo keenayso murugyo waa saxsan yahay aabaheyna say wax uga sheegeynaa ma anfacayo khamiiskan inaan saan ku qaadno waxaa loo baahan yahay in calaamo aan u yeelno calaamo la'aan ma anfacayo هاول ولين إلا هذه إدمه واصل خدونان weligooda saam u soo daahi jireen waxay imaan jireen qoraxda intaadan dhicin laakiin maanta waa soo daaheen شكي مكوجرو ما أنتو حال باشالوين يوسف كاس درتي سو صداهن واقوى ولا ليك يهودا يوسف آوي انت جيسين يوسف أوديك جورجيا يهوذا شمعون روبين هذه كان الهدايا وحير مصطفى هلاك أيات كسوكنتهين أبي وحون أيات أسميسان أبي ها بيهان حوها وجه وفرد يعقوب محاوي وصوحي
يوسف لواي يا بوي كاس أنا مدي سوحي ماشي لقيمة لأو يوسف وحير صور يا نبي الله جوكس يا نبي الله إلى جل أو أنت يهوذا ما حد يقول داعي يوسف ما حدا إلاوي يوسف ناوي ما هو نوشي ويزيد إلا هبان كنارني وحاوتنا أخبار وقلبي قلوا حيسو ما هو يسوي وحيدنكو شيقنا وحيدنكو فاسنا وحلينو الشيغة هاتي إذن شيقنا قلبي قلوا وحيدنكو خرحة سوحي شيقنا أنا موقني سوحي شيقنا ما هيتهي أخبارت أو قلبي قرحي هيسو إيشيغة با أوني مصيبة دكسود دكتي ويكيغ يوسف إيشيغة با محاوي سي وحو داعي مكو شيغي كرنو markii musiibada dhacaysa anaga ma joogin يوسف anaga waxaan ugu tagnay cuntadayna hal saacadood aan ka maqnayn anaga maxaan ka sheegi karnaa si suxu dhacay markii anaga soo naqanay Yusuf waa markii musiibadahan dhacaysay anaga ma joogin anaga waan dheelaynay yuusufne waxaan oga tagnay xoolaheena ها صح واي حولهنا يوسف أنكو دقني كبعبدي علامة أنا ركني waxaan helnay alaabteena iyo cuntadeena laakiin Yusuf maya waxaan aragnay xamiistiisa aniga Yusuf xabiibi xabiibi Yusuf waa qof jirkeyga ka mid ah maasin waxaan ku soo xasuusinaaya saamku ilaawi kariye xasuustiisa maasin waa intuuba xasuustiisa siiyad yaasin runaa ku sheegaynaa waxaan xasuus wahaynaa khamiistaan oo dhiiga leh markii waraa waxaynay kabacdi khamiistaanaa helnay ها واروح خميستي يوسف وهيك ما شاء الله ليدت كيسة يقصوا عفوا يا أنيقة يوسف عساي أمان ولا شيء دي ودي رحيل مركيني بيس أنا إيماني ودي ودي دردارتي إلهي أنا على الوراوي أسعوني تصبر على نار فراقك يا يوسف يوسف مركي oo waraabaha soo hajuumayay khamiistan muu xirnaa waa waraabo naxariis badan laakiin waxaa cajiib ah waraabo oo bini aadam cunaayo khamiistana aan jeexin yaab soo maha kana waa riyadii nabiyaalka ay arkeen riyadii oo tobanka waraawo ay raween wiilka inay dilaan
maya yuusuf waraabu ma buu cunin waa ogahay aniga waxaa daliil yahay khamiistan yahuuda yuusuf haddii waraaba jirkiisa cuni khamiistiis maxaa su jeexmi waaye saas ku dhacay khamiistiis oo nadiif oo jeexmin sida wax u dhacay anaga ma ognahe yaab waaye khamiistiisa maxaa u jeexmi waaye waa saxsan tahay walaalkay wixii sheegooy sax waaye shamcuun si wax u jira ii sheeg runta ii sheeg hooyo anaga wax ma ka ognihi shay cajiib waaye xaqiiqda ma sheegi karo aniga wiilkayga sida wax ugu dhacay laakiin waxaan hubaa nafsidiina inaa idin amartay shaytaan inaad samayseen waxaan xun indhihiinani idin qurxisay waxaa sheeka ku jirin gadaashiina shaydaan inaas joogay anaga idinka camanaanahay waxaan ognahay male maxaana go'aamini weyseen waxaa waajib nigu ahay inaa yuusuf anaalisiin wejigayga ka leexda cawada yuusuf soo raadiya inta keena hooyo yuusuf waa raadinay mana helin maxaan sameehaynaa intaas ka bacdi wixiina dhahi sameeya caawa waana soo naqatiin adiga yuusuf wadiin ina keena hadhow ayaan soo naqan doonaaye anaga ma aragteen gacantiina waxa aad ku kasbateen bani israa'iil dembiga aadaa sabab u ah markii kow haddii khamiista aan jeexi lahayn waxaana ma dhici lahayn weliba waan ka gaaranaa inaan samayno arrintaas weliba khaladku sax ayaad wadiin miyaa waxaan idin sheegaa in arrintan aan ka shifaayo haddii hadal afkiina ka soo baxo wax ma dhacaayo maxaan samayhaynaa noo sheeg aabaheen hadalbeen ma qaadahaayo aabaheen haddii hadalbeen qaadaheeni runta u sheega waxa uu dhaha yuusuf annaga ayaan dilnay baxa aabihiina u sheega beenta waxaa laga yaabaa inuu aamino filimkan waxaa lagu turjumay stuudio safi oo ku yaala dalka talyaaniga gaar ahaan magaalada Padova